بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على من بعثه الله هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. نشهد جميعا انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. انت كدب الهي سبحانه وتعالى ما هذا اسكله نغارسي بشي رمضان وعاوه بلتي عن ربي سبحانه وتعالى كبرينا وافجنتا ونوافجي ويضو النعمه إلهي سبحانه وتعالى نو kaalmeeyo ka mahadnaqeeda. waxaad ogtihiin sanadkii la soo dhaafay dad walaalaha oo nala soomay maanta inaysan adduunka noolayn dhibaatadan jirta daraadeed. in ilaahi subxaana wa tacaala cimrigeena dheereeyey oo na gaarsiiyey bishaan waa ka mahad celinaynaa. rabbi baan uga mahad celinaynaa jala jalaaluhu. annagoo rabbi subxaana wa tacaala ka rajaynayna inuu noo ziyaadiyo shukrigaas aan nicmada ku sugnay daraadeed. nicmadaas marka inaan ogaanay laga maarmaan weeye. mahadnaqeeduna waa camal, inaan camal falno oo ilaahay subxaana wa tacaala waajibintu nagu waajibiyey bishaas inaan soonnona aynu soonno. acmaasha kale jinsiyada kalele ee kala gedisan ee bishaan ilaahay subxaana wa tacala ugu dhowaadana inuuna waafajiyo inaan ilahay subxana wa tacala ugu dhowaano. haddaan marka mahadnaqaas aan samayno ilaah uu noo ziyaadanaya nicmooyinkiisa waxayna ka mid tahay mahadnaqu waxyaala ilahi subxaana wa tacaala uga dheerayo qofka inuu cadaabo maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum. fadliga iyo axkaamta bishaan ay leedahay kama hadlayno, culammadan way ka hadleen, qof walbaan wuu ka dheragsan yahay. waxaase muhiim ah fursaddan iimaankeena inaynu jadiidinno oo toobadii jadiidinno oo qalbadeenna aynu furno. maradatu shayaadiin ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu naga xiray inaynu ku dadaalno kuwa yaryarka ah inaynu iska celinno waa ilaahay subxaana wa tacala ugu dhowaano. taas waa midda sida garaadku sheegay waxaan ku tukan doonaa insha allahu tacaala jus masaajidkan ilaa maalintii la furay ilaa hadda khadamaadkiisu way socdaan oo mar walba kulma xasuusto iyadoo aan qur-aanka la dhammaynin. bishii ramadaantii lasoo dhaafay hadda ogeydeen masaajidku wuu xirnaa, haddana 10kii maalmood ugu dambeysay khatmaa masaajid ku samaynay oo maalintii 3 juz ahaa si masaajidku uusan u khatmo beelin. insha allahu tacala waxaan samaynaynaa juskaasaan akhrin doonaa biidn illahi tacaala. duruufta lagu jiro iyo saxmaddan badan iyo wax aafada taalla daraaddeed iyadoo aan qadarinaynin waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala annagoona qur-aanka ku jasaaraynin, qur-aankana aan xuquuqdiisa meelna uga dhacaynin, balna iswaafajinno wakhtigana inaan soo koobno qur-aankiina xaqiisa aan siino. taasi waxay keensanaysaa marka mimbarkan aan taaganahay wuxuu leeyahay haybad buu leeyahay. qofka istaaga un baa garan kara. mikrafoonka iskale halkaas aan taaganahay un baan jaraynayaa hadda. iska walaaf iyadoo qur-aan lagu dhiibay oo layidhi intaasoo qof toojiya. qur-aankuna waa qur-aankiiba oo cidka qaalib ka noqon kartaay aysan jirin. nebigii lagu soo dejiyey calayhi afdal asalaatu wasalaamna uu markuu dadka toojinayo uu gafi jiray. waxaa imaan doona marka sahawaad badan, isdhexgal badan, muxuu ahaa gefba imaan doona. waxaan ka codsanayaa walaalaha aadaabta furitaanka imaamka hadda musbaqa sii sheegayna. imaamka waa ila joogaa, sheekh shucayb ila tujin doona insha allahu tacaala, sheekh muxidiin waa joogaa, aimadu way joogaan. aadaabteeda imaamku ama qofka salaada tujinaya markuu ugu baahi badan yahay waxa weeye markay aayadu ku margato yaa kaa fujigiisa leeyahay. haddii marka loo naxariisto markiiba loo furo, yani waxaan sheegayaa cod saan uu maqlayo meeshiisuu ka sii wadanaya. laakiin dii guux iyo booq ee dhacaan isna wax ma fahmayo, masaajidkiina tashwiish baa ku dhacay. waa mare maadaama qur-aankan uu mucjiz yahay, imaamku haddii uu gafo cabdiraxmaan ibnu salami ayaa cali bin abi talib wuxuu ka warinayaa inuu cali ku yidhi waida istadcamaka alimaamu faadcimuh. xadiidka bayhaqi baa wariyey. imaamku markuu kaa cunto dalbo cunto si, bimacnaa markuu intuu meeluu aada garan waayo isdhiibo aamuso. markuu maskiinka yaa waa la fahmaa imaamka markuu isdhiibo waxoogaa aamuso agtaad uu galo. laakiin isagoo xaawilayaba mutashaabihaad baa qur-aan ka buuxa, isagoo intuu mar galay raba dib inuu noqdo soo sexdo haddaad ka horgeysid isku wareeraya. taas waa mid. waxaa kaloo dhacda iyadoona qofku u qasdaynin walaalaha wax furayaay inay iyaguna imaamka la khaldaanba oo dacee maahan qofka taasuu u malaynaya. marka kow in imaamka la sugo intuu isagu qofka qur-aanka akhrinaya saxayo. labo haddii u gafana qofka ugu dhow khaasatan imaamadii baa horey fadhiya
in iyaga loo daayo iyagu ay muxuu ahaa bal culimadu waxay yidhahdeen xaaraama weeye qof fog haddii uu imaamka uu hadal kusoo tuuro imaamkuna maqli waayo tashwiishkaasna uu yimaado marka taasna insha allahu tacaala waan codsanayaa waxaan ilahi subxana wa tacala ka barya in na waafajiyo oo noo fududeeyo annaguna waa dadaali doonaa biidn illahi tacaala inta uu yani qur-aanka xaqiisina saan sheegana una ka tegin waktigan insha allahu tacaala inaan biidn illahi tacaala soo koobno